imaanaya gudaha wadankaasi Ingiriiska ayaa waxa ay sheegayaan kooxda kubadda cagta Juventus ay xilligan meesha ka saartay wararka sheegay in kooxda difaacanaysa Serie A ay ku fikirayso soo qaadashada khadka dhexe ee Manchester United Paul Pogba. agaasimaha ciyaaraha kooxda Juventus Fabio Paratici ayaa haystan meesha ka saaray suurtagalnimada inay mustaqbalka dhow kooxda ay kula soo wareegayso Paul Pogba si ay dib ugu soo laabto magaalada Turin halkaasi uu meesha ugu soo caanbaxay. Camalaqeed reer Talyaani ayaa Juventus ayaa la aaminsan yahay inay ka mid tahay kooxaha raba inay ka faa'iideystaan xaaladda xun ee Paul Pogba ku haysata Manchester United kadib markii ay isku dhaceen tababaraha aanan kaftamin ee Jose Mourinho. Barcelona iyo PSG Chairman ayaa sidoo kale la rixinayay inay u baahan yihiin adeega xiddiga ku guuleystay koobka adduunka 2018 laakiin Juventus ayaa la ogyahay inay tahay kooxdii dunida soo bartay xiddigan ka hor inta imaatinkiisa Juventus uu ahaa mid aan aqoon buuxda u lahayn ka hor inta aysan lacag rikoor ah ku iibsan kooxdii caruurnimadiisii Man United ee sanadkii 2016. Patricia ayaa xaqiijiyay in kooxda ay haysato horyaalka Talyaaniga in ay weli xiriir wanaagsan la leedahay Paul Pogba laakiin waxa uu shaaca ka qaaday in rajada laga qabo inuu soo laabto Paul Pogba Turin ku soo laabto aan weli laga fikirin in maalin ay ku fikri doonaan inuu dib ugu soo laabto meeshii uu ku soo caanbaxay. Patricia ayaa sidoo kale hadalkiisa ku bilaabay waxaana uu yiri waan jeclahay Paul Pogba xiriir fiican ayaa inaga dhaxeeya isaga. Patricia ayaa sidaas yiri sidoo kale Patricia ayaa sidaa yiri sida laga soo xigtay majalada caanka ee The Mirror. laakiin marnaba kama aanan fikirin inaan ku soo celin Juventus mana doonin inaan ka fikirno xarintan xilligan. Pogba ayaan weli haysta 2 sano oo qandaraaskiisa ku jooga Old Trafford waxaana loo maleynayaa inuu u dhaqaaqayo Barcelona taasoo kooxda ugu cadcad ee la wareegi karta xidka qadka dhexe ee adduunka ugu fiican ee Paul Pogba. qodobkeena maanta barnaamijka kaas ayaan kusoo gabagabeynaa. farsamada waa muxtarif aniga waa Liibaan halkaad ka dhageysaneyseen waa Go Media. fadlan subscribe share and like na saar comment ka soo bixi aad ayaad u mahadsantahay.